jacaylku wuxuu mar walba u muuqdaa inuu yahay wax awoodeyna ka baxsan wuxuuna na dhaxal siiyaa khibrado cusub iyo xasuus aanan dhugteena ka go'ayn dhammaanteen waan awoodnaa inaan raadino qof khaas ah oo inoo qalma kaasoo aan rajaynayno nolosheena inta ka dhiman inaan waqti la qaadano haddaba tilmaamo caynkee ah ayaad ka eegaysaa si aad u xaqiijiso inaad heshay qofkii kuu qalmay iyo in kale ii ogolow inaan kula wadaago 7 calaamadood oo aad ku ogaanayso kow waxaad wadaagi kartaan aamusnaan raaxo leh jacaylku waa isfaham laba dhinac ah marka aad si weyn u garanayso qofka aad la jirkiisa tahay ma dareemaysid mar walba inuu kula hadlo dabcan wada hadalku waa laga maarmaan marka ay xiriirka joogto khalad ha ii fahmin laakiin marka aad idinkoo aan isla hadlayn aad isla joogi karaysaan idinkoo isku qanacsan waa calaamad muujinaysa in xiriirkiinu waarayo labadiinuba waad iska fikirtaan marka aad kala maqan tihiin tan waxay tahay inaad mar walba niyadda ku hayso lamaanahaaga inta uu kaa maqan yahay adigoo ka fikiraya xaaladiisa guud kama dhigna inaad gabi ahaanba lamaanahaaga aadan ka maarmin balse waxay micnaheedu tahay in muhiimad weyn uu kuu leeyahay 3 waxaad tihiin kuwa wada hadla mar walba communicationka ama wada hadalka waa habka ugu sareeya ee xiriir walba ku waari karo communicationka kaliya kuma eka inaad lamaanahaaga xaaladiisa weydiiso ama inaad go'aamisaan waxaad qaban lahaydeen balse sidoo kale waxaa qayb ka ah marka arrin aad isku fahmi weydaan ama aad iskhilaaftaan inaad wada hadli karaysaan iyo inaad waxa aad dareemayso farxad iyo xanaaqba aad si aan cabsi lahayn ugu muujin karayso 4 muranka iyo doodda waxay idinka yeelaan kuwo adag lamaanayaasha aan wax dood iyo muran ah dhexmarin waxaa la xaqiijiyey in xiriirkoodu wax ka khaldan yahay muranku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad banaanka keento waxa laabtaada ka guuxaya inaadan soo saarinna waxay keentaa dhibaato ka daran muranka waa inuusan lamaanayaasha kala geyn dhab ahaantii lamaanayaasha sida dhabta ah isu jecel waxayba ogaadaan in muranka iyo doodda xiriirkoodu ku adkaado iyagoo isbedelaya isu tanaasulaya midba kan kale sidoo kalena ay wax badan naftooda kaga ogaadaan haddaba haddii xiriirka tilmaantaasu leeyahay waa mid waaraya waqti fog 5 waad iscaawisaan si midba kan kale riyadiisa u gaaro ma jirto wax ka fiican inaad macigiisa ahaato qof kugu dhiirigelinaya inaad hiigsato yoolkaaga inaad lamaanaha ka caawiso inuu noqdo qof wanaagsan ama inuu gaaro riyadiisa waa habka ugu sareeya jacaylka lagu muujiyo waana calaamad muujinaysa in xiriirkaasi baaqi ahaanayo 6 ma dareemaysid inaad baahi u qabto inaad khiyaanto lamaanahaaga calaamad lagu garto in xiriirku yahay mid waaraya ayaa ah inaysan maskaxdaada marna si dhab ah ugu soo dhicin inaad khiyaanto lamaanahaaga lacalla haddii ay ku soo dhacdana durba waad ka cuudubilaysataa 7 mar kasta waxaad ka haysataa lamaanahaaga filasho waaqici ah realistic expectations caalamka baraha bulshada iyo dhalateedka tvda ka socda waxay kugu dhalin karaan in ficilo aan waaqici ahayn aad ka rajayso lamaanahaaga laakiin haddii xidhiidhkiinu yahay mid weligiisa waaraya maba gelinays maskaxdaada filashooyin aan waaqici ahayn waxaadna ku qanacsan tahay inuu midkiin kan kala haysto waxaadna ku faraxsan tahay sida uu xiriirkiinu ku socdo maxaad u malaynaysaa inuu xiriirka ku waarayo nagulooda fikirkaaga qaybta commentiga sidoo kale ha iloobin inaad subscribe tiraado kanaalkan gambaleelkan aad furato si aad ula socoto mawduuca xiga mahadsanid